بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدا أن وذوكسون هاي إلهي إذا مكيسة وحين كوجد الشرني دورشدي وديار جروج دورشدا أقل كسرة حلبان هذا أما سنة هذا كوبية طبعا كومة تلدونا قبل هذا قوي سومالي لان أقل كسرة برلمان كفدرال كسوماليا وحان شاعن الليسكا murashaxiinta u tartamaya kuraasta 11 ah iyadoo aan ku salaynay habraacyadii kala duwanaa 17 September 2020 27 May iyo sidoo kale 22 August oo jihaynayay ama tusayay tilmaamaha iyo habka loogu tartamayo kuraasta aqalka sare aniga iyo gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaanu وحل صارنين إن نصاح لنا كراستا قبل هذا وقوية سوماليلاند مرشحين تأثرت مساء الناس يقد بساعات سيادة سيدا استراديد وحن نصاب بندقني مرشحين تاكوبي تونك كرسي كردون وحن نصيب درهويني هل قف أو كل ترتمى قدوميها كرسي كوباد عد سوق بساعي سنشرين أنا خاصة أن أراديي إن يجران مشرحين دانينيسا ayna suurtagali weeday in aanu helno 12 kursi iyo musharaxiintoodii waa soo bandhignay waa ka wada warqabtaan waan shaacinay ra'iisul wasaaruhuna doorkiisa shariifka waa ka qaato waa hubiyay sidaas ay ku gashay uguna gudubtay gudida heer federaal iyo gudida doorashooyinka Somaliland shahaadooyinka musharaxiinta iyo hawlihii loo baahnaa dhamaaba ay ku dhameystirmeen hase yeeshee markaanu la tashi sameynay dhageysinay soo jeedintii odayaasha deegaanka ee kursiga koowaad tixgelinay muhiimadda ay leedahay in la helo tartan iyo qof u diyaar ah inuu la tartamo waxaan soo xulnay Saciid Cumar Xuseen oo kula tartami doona kursiga koowaad gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi sidaas daraadeed kursiga koowaad waxa uu leeyahay hadda laba musharax oo ku tartama kursigaas koowaad anagoo tixgelinay dhageysanayna soo jeedintii iyo rabitaankii shakhsigaasi inuu ku tartamayo shakhsiga kaleba odayaasha deegaanka khaasatan kursigaas gaarka u leh waa mahadsantihiin sidaas daraadeed kursiga koowaad waxa ku tartami doona gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Saciid Cumar Xuseen waxaan rabaa inaan la wadaago warkaas bulshooyinka Soomaaliyeed iyo daneeyaasha guddiga doorashooyinkana waa u gudbinay heer deegaan in ay ka shaqeeyaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh